kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastaad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan maqaal oo la taliyihii hore ee amniga qaranka Fahdi Yaasiin Xaaji Daahir uu ka qoray geerida Allaha u naxariistay Generaal Farxaan Maxamuud Qaroole oo shalay ku geeriyooday qarax miino. Fahdi Yaasiin qoraalkiisa waxa uu ku bilaabay sida tan: Farxaan oo naftaadii dalkaad u hibaysay, geeridaadiina qulubtii dadkay midaysay. kumuu ahaa Generaal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, wiil dhalinyaro ah oo gaaban oo misana caata ah oo haddana baryar bashaash ah sida magaciisa ka muuqata aad farxaan u ah, fariidnimana u dhashay fiiro dheer hadal yar misana qorshe dejisan kara qarankiisa iyo madaxdiisana daacad u ah, dhiiggiisa iyo dhididkiisana u huray dalkiisa godkii jannada u galay insha Allah, isagoo difaacaya sharafta iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Magiciisa siduu u faafay, siduu u jin yaraa iyo sida da'diisa u yarayd, intaasi kaliya sabab uma noqon karin darajada uu gaaray ee wuxuu maqaam sare ku mutaystay daacadnimada, howlkarnimada, wadaniyadda iyo qaran jacaylka qalbigiisa ku abuurnayd. Waxa uu ka mid ahaa dhowr dhalinyaro ah oo aan ku bartay shaqada amniga iyagoo ah saraakiil dhexe, wuxuuna aad u jeclaa inuu mar walba wax barto oo uu aqoonta ciidan kororsado. wuxuu qayb ka ahaa ciidankii laga wareejiyey nabad sugidda ee loo wareejiyey booliska. Ma uusan iska dhigin sarkaal xil raadinaya ee wuxuu la xarooday askar tababar loo xareynayay oo lagu aasaasay ciidankii Haramcad, wuxuuna galay dufcad tababar ku qaadatay Xamar iyo Turkiga. wuxuu soo laabtay isagoo helay aqoon booliis iyo tababarka howlgallada gaarka ah, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidanka gaarka u tababaran ee Haramcad. wuxuu lahaa sifo ay aad ugu yar tahay hoggaanada ciidanka, taasoo ah inuu saaxiib dhow la ahaa ciidanka uu madaxda u yahay iyo inuu daacad u ahaa qarankiisa. dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray intaba si daacad ah ayuu u gudanayay shaqada qaran ama waajibaadkiisa, waana sababta dowladdii timaadaba ay u aamintay oo uu mustaqbalkiisa mar walba horumar u gaarayay. 3 qolo ayaa mudan inaan uga tacsiyeeyo geerida xanuunka badan ee ku timid walaalkeen haliyey Generaal Farxaan Maxamuud Qaroole. qolada koobaad waa qoyskiisa oo ay ugu horeeyaan waalidkiisa, xaaskiisa iyo carruurtiisa. waxaan leeyahay geeridu waa xaq ee samir iyo iimaan Allaha idinka siiyo dhammaantiin. marxuumka jannadii Alle ha geeyo, ilmihiisa iyo qoyskiisana Alle ha dhowro oo ha barakeeyo. waalidkiisana waxaan si gaar ah u leeyahay qadarta Ilaahay raalli ku noqda. rabbigii abuuray oo koonka keenay baa haddana naga ceshaday. qolada labaad waa madaxweynaha iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. waxaan leeyahay mudane madaxweyne, waxaan kula qaybsanaynaa xanuunka iyo tacsida geerida ku timid Generaal Farxaan Maxamuud Qaroole oo maanta shahiiday isagoo gudanaya waajibaadka qaran ee aad fartay oo ah la dagaalanka argagixisada. madaxweyne, samir iyo iimaan Allaha kaa siiyo. waxaan kuu rajaynaynaa inaad ku guulaysato horumarinta tayada ciidanka iyo nabadaynta qarankeena. sidoo kale ciidanka booliiska ee uu ka midka ahaa Generaal Farxaan, waxaan ku sii adkaynayaa in geerida shahiidka qaranka Farxaan ay ku dhaliso dhiiranaan iyo dhiigga iyo in dhididka in loo huro dalka iyo dadka Soomaaliyeed. qolada saddexaadna waa shacabka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay ogaada in dalkii ay u kaceen dhalinyaro wadaniyiin ah, xirfad iyo tababar ciidan oo sare, qaarkoodna daacad u ah kana mid ah qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. sidaas daraaddeed boqolaal Farxaan oo kale oo booskiisa buuxiya shacabkoodana difaaca waan leenahay. waxaan Ilaahay ka baryaynaa in madaxda qaranka uu haleeshiiyo in ay soo saaraan awoodda iyo tayada dhalinyarada kor u qaadi karta rajada iyo niyadda shacabka Soomaaliyeed. walaalkay Farxaanow, waan ogahay inaysan fariintani ku soo gaarayn, laakiin waan ku khasbanahay inaan kuu soo diro. Farxaanow, inaad jid xaq ah ku dhimatay, inaad dalkan daacad u ahayd, inaad sarkaal qaran ahayd ood ka sarraysay siyaasadda. waxaan ku gartay madaxdii ummadda Soomaaliyeed oo dhan. khilaaf kasta oo dhexdooda yaallay intay gees isaga dhigeen, waxa miyeeyey inay ku wada duceeyaan, ku wada ammaaneen, iyagoo ku wada jecelna aad shahiiday. naftaadii dalkaad u hibaysay, geeridaadiina dadkay midaysay. rabbigay jannadii guri kaaga yeel, dembigaaga adduun xasanaad ha kuugu bedelo, annagana gadaashaada eebba nama fidmeeyo. Fahdi Yaasiin, la taliyihii hore ee amniga qaranka, ayaa intaasi ka yidhi geerida Allaha u naxariistay shalay ku timid taliye qaybeedkii gobolka Banaadir ahna taliyihii ciidamada Haramcad Farxaan Maxamuud Qaroole. waxaa idiin soo gudbinayay qoraalka la taliyihii hore ee amniga qaranka Fahdi Yaasiin Xaaji Daahir, anigoo ah Yuusuf Saxardiid.
intaynu dib u kulmi doonno nabaadiino isma dhaafno.